dilanka ilmaha ama miscarriage wax loo yaqaano waa dhibaato ka mid ah dhibaatooyinka hooyada la soo darso xilliga uurka, taas oo ku sababto inay dhiig baxdo oo cunuga soo dilmo kadibna banaanka imaado si ku talagal la'aan ah. Marka su'aasha ayaa ah, maxaa sababa dilanka ilmaha xilliga uurka? Daawona ma leeyahay xanuunkan? Dilanka ilmaha waxaa sababa ilaa 10 waxyaabood. Inta badanna waxa uu dhacaa 3 bil ee ugu horeyso ama first trimester wax loo yaqaano. Marka 10 shay ugu waaweyn oo sababta waxa waaye 50% dilanka ilmaha 3 bil ugu horeyso waxaa sababa chromosomal abnormalities wax loo yaqaano, oo ah hidde-sideyaasha ku dhex jira seelka in si qaldan ay u sameysmaan ama qaladkan dhankooda uu ka yimaado. Waxaa sababa infectionska ama caabuqyada, waana wax ugu badan oo bulshadeena ku sababa marka isbitaalada tagaan na loo sheego in waxa sababa dilankooda oo yahay infection. Marka infectionada sababa inta badan waxa ay ka yimaadaan xubin taranka ee dumarka, waxayna soo aadaan kor ilaa ilmo galeenka ay imaadaan, halkaas ayayna dilanka ku geystaan. Marka waxaana kamid ah mataqaana example tusaale ahaan gonorrhea ayaa kamid ah, chlamydia ayaa kamid ah, mycoplasma ayaa kamid ah, bacterial vaginosis ayaa kamid ah. Marka inta badan waxay ka imaadaan vaginaha ama xubin taranka, kor ayay soo aadaan uteruska ayay imaadaan, sidaas ayayna dilanka ku sababaan. Waa qodobka labaad. Waxaa sababa hormonal irregularities wax loo yaqaan, oo ah dheecaanadii ama hormoniskii ka qayb qaadan lahaa sameysanka iyo korriimada cunuga inay caqabad ku timaado. Ayadana waxay ka qayb qaadataa cunugii inuu si fiican u sameysmo waayo kadibna oo soo dhaco. Waxyaabaha sababa waxaa kamid ah radiation wax loo yaqaano ama kaaha ama shucaaca sida x-ray ama raajada oo kale hooyada hadii la saaro xilliga ay uurka leedahay, ayadana waxay u badan tahay inuu dilankaas yimaado. Waxyaabaha keena waxaa kamid ah lifestyle factors wax loo yaqaano sida sigaar cabka, dadka alcoholka ama khamrada caba, dadka daawooyinka sharci darrada ilmaha soo rida caba, waxaas oo dhan waxay keenayaan dilanka ilmaha. Haddii mataqaana disorder uu ku yimaado immune systemka, difaaca jirka, ayadana waxaa dhacayo in difaaca jirka si qaldan uu shaqeeyo kadibna oo sababo wax loo yaqaano macnaha autoimmune disease ayaa la dhahaa. Marka difaaca jirka si qaldan u shaqeynaya kadib sidaas ayuu cunugii ku dhimanaya. waxa waaye severe kidney disease wax loo yaqaano, oo ah dadka kaliya xanuunka zaa'idka ah qaba oo kaliyaha ka jiran. Marka dadka jirooyinka zaa'idka ah kaliyaha ka qabo ayagana mataqaana inta badan waa lagu arkaa dilanka ilmaha. waxa waaye haddii diabetic that is not controlled, haddii sokortaada aan la controlin oo daawooyinka sokorta aadan qaadan, ayadana waa lagu arkaa hooyooyinkaas dilanka ilmaha. waxa waaye some drugs daawooyinka qaar oo contraindicated ku ah ama aan loogu talagalin inay isticmaalaan hooyooyinka markay uurka leeyihiin, haddii ay isticmaalaan ayagoo dhakhtar u soo qorna ama la tashan farmasi ay kasoo qataan, inta badan ayagana dilanka waa lagu arkaa. waxa waaye severe malnutrition wax loo yaqaan, oo ah haddii hooyada nafaqa darro zaa'id ay hayso. Dadka inta badan waxaa u badan kuwaan ku nool kaamka qaxootiga oo wax fiican aan cunin, nafaqa darro zaa'id ay hayso, waxaa dhacaya sidoo kale cunuga inuu soo dilma. Marka 10kaas shay ayaa ugu caansan waxyaabaha keeno dilanka ilmaha. Waa maxay calaamadaha lagu garto marka uu jiro dilanka? Waxaa ugu caansan ilaa 3 calaamad. waxa waaye hooyada inay isku aragto abdominal pain wax loo yaqaan, ama bagga inay xanuun zaa'id ah ka dareento. waxa waaye low back pain wax loo yaqaan, oo ah dhabarka qaybtiisa gadaala ama qaybta hoose inay xanuun ka dareento. Marka hore tartiib u soo dareemeysa kadibna xanuunka oo darnaada. Marka hore tartiib camal u soo dareemeysa kadib xanuunka uu kasii daraa markii dambeeysa dhabarka qaybtiisa hoose. 3 calaamad kale waxa waaye hooyada isku arkaysa bleeding, dhiigbaxaas marka hore waa light oo si tartiib waa dhiig macnaha oo aan cuslayn, kadibna heavy ayuu noqonayaa, dhiig aad u culus ayuu noqonayaa. Marka inaan fahanteen ayaan rajeynayaa. waa 3 calaamad ugu caansan hooyada markii mataqaana miscarriage ama dilanka cunuga uu ku yimaado. Marka haddii calaamadahan isku aragto, hooyada waxaa lagula taliyaa inay si degdeg ah isbitaal u tagto. Marka sidee lagu ogaadaa xanuunkan? Waxaa lagu ogaadaa qofka in isbitaal oo tago, dhakhtarna uu baaro oo pelvic examination waxa la u sameeyo, kadibna ultrasound computerka la oo saaro. kadib haddii cunugii oo soo wada baxay oo miscarriage ama ilmaha soo wada dilmo banaanku soo wada baxo, ma baahna wax kale. haddii wax ay ku hareen
crutage wax loo yaqaan ayaa loo sameeyaa, waa laga soo xaqaa wixii meesha ku haray sidaas ayaa la sameeyaa. sidoo kale tastiye ayaa loo diraa oo macnaha يعني baaritaano kala dheeraad sida dhiigeeda in la fiiriyo hadoo infection wax lamid oo keenay genetic test waxa la loo diraa oo waxaan sheegnay 53% bil ugu horeysa chromosomal abnormalities ay ka timaadaa genetically marka yani in ayadan la fiiriyo sidaas ayaa mataqaana baaritaankana loogu sameeyaa. marka hooyada hadii dilankan uu ku yimaado ma laga yaabaa inay dib uurka u qaadaan 87% hooyooyinka miscarriage-ka ama ilmaha ku soo dilmaan uur si caadi ah ay u qaadaan wayna dhalaan wax dhibaato ah malahan. laakiin waxa la sheegaa hadii hooyada isku aragto 3 dilin ay wax ka badan in ay dhalmada joojiso kadib dhakhtarka ay ku laabato baaritaano waaweyn ay marto 10 kada aan soo sheegnay ay iska fiiriso. su'aasha ugu dambayso oo aan ka jawaabayno waxa ay tahay shaaha ma ka qayb qaataa waxyaabaha sababo dilinka ilmaha? taas waa been, kama qayb qaato, shaqana kuma lahan. dadka qaar ayaa aaminsan fikirkaas inuu ku soo weydiinayaan ma aqaan meesha ay ka keeneen. marka insha Allah ta'ala faantanaya arjeynaya cashirkan intaas ku eegay. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.